wararka shabakada Baahi News ay idin hayso waxa ugu waaweyn Xamaas oo guula ka sheegatay gulufka dagaal ee Gaza. wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran oo si kulul uga hadashay markabka lagu duqeeyay badweynta Hindiya. 100 qof oo lagu dilay duqeymaha dhanka cirka oo laga fuliyay Gaza. ciidamada Israel oo dad gaaraya 35 qofood ku xidhay daanta galbeed ee la haysto iyo sidoo kale shabakada Ciisaddiin al-Aqsaam oo dagaal ba'an oo horey loo arag ku qaaday ciidanka Israel iyaguna sheegay in khasaare ay gaarsiiyeen. qodobada ay qodobo kale oo dhameystiran ay idiin soo gudbin doonaa aan ku bilowne wararka la iskula dhaxmaraya baraha bulshada ayaa sheegaya in Yahya Sinwar uu ka hadlay khasaaraha dagaalka Gaza oo uu sheegay in guutooyinka Ciisaddiin al-Aqsaam ay dagaal ba'an oo horey loo arag ku qaadeen ciidanka Israel waxaana askarta Israel ay la kulmeen khasaare naf iyo maalba leh. Sinwar waxa uu intaa ku daray in intii uu socday dagaalka dhulka ay guutooyinka Gaza ay beegsadeen ugu yaraan 5,000 oo askari iyo saraakiil kale kuwaasi oo 3 meelood meel la laayay 3 kalena uu dhaawac halis ah uu soo gaaray. dhanka gaadiidka dagaalka 750 ka mid ah ayaa la burburiyay iyo kuwa kale sida Sinwar uu sheegay in guutooyinka al-Aqsaam ay burburiyeen ciidanka xoogga dalka isla markaana ay ku sii socdaan wadadii ay ku burburin lahaayeen iyagoona diiday in ay dhag jalaq u siiyaan shuruudaha la xiriira dagaalkaasi. Sinwar waxa uu amaanay adkeysiga shacabka reer Falastiin ee ku dhaqan marinka Gaza isagoo xusay in ay soo bandhigeen tusaalayaal aan la soo koobi karin oo isugu jira nafuurid, geesinimo, isku duubni iyo midnimo isla markaana waajibkoodu ay tahay in ay si degdeg ah ay u bogsiyaan dadkaasi. in ka badan 100 qof ayaa lagu dilay duqeymaha dhanka cirka oo ay ciidanka Israel xalay ka fuliyeen bartamaha Gaza. ugu yaraan 7 qofood ayaa lagu dilay duqeymo ka dhacay bartamaha Gaza ee xerada qaxootiga ee Maqaazi. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa goor dambe oo xad shalay sheegtay in weeraradii lagu qaaday xerada qaxootiga ee Bureij ay tirada dadka ku geeriyooday ay kor u dhaaftay 100 qofood. afayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka Ashraf al-Qudra ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay xerada qaxootiga ee Maqaazi ay u badan tahay in ay sar u kacdo. waxa ka socda xerada Maqaazi waxa suuq lagu hayo goob dadku ay u badan yihiin buu yiri. tobaneeyo kale ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhaawacmeen dhowr gurina lagu burburiyay. qoysaskan waxa ay sidoo kale isku dayeen in ay hoos u qodaan burburka iyagoo isku daya in ay helaan dad halkaasi ka badbaaday. bambaanooyinka ayaa ku soo dhacay guryo iyo dhismayaal sida ay sheegtay Hani Maxamuud oo ka timid Rafah oo ku taalo koonfurta Gaza waxayna sheegtay in la burburiyay xaafado iyo kaabayaal dhaqaale sida wadooyinka soo galay iyo kuwa ka baxa xeryaha qaxootiga ee reer Falastiin. xerada qaxootiga ee Bureij ayaa sidoo kale xalay la garaacay ilaa 100 qof ayaa lagu dilay 12 saacadood ee la soo dhaafay ayuu raaciyay. inta badan dhibanayaasha ayaa u badan caruur iyo sidoo kale haween. ciidanka Israel ayaa ugu yeeray dagaalka Gaza mid aad u adag iyadoo ciidan tiro badan lagu laayay. waxay inta ku dareen in tiro maxaabiis meed ah kuwaasi oo gaaraya 5 in laga soo saaray dhulka hoostiisa ee waqooyiga Gaza. in ka badan 20,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay weerarada Israel tan iyo 7 Oktoobar. wararka laga helay daanta galbeed ee la haysto ayaa sheegaya in ciidanka Israel ay xabsiga u taxaabeen 35 qofood sida ay shaacisay guddiga maxaabiista iyo arrimaha maxaabiista hore ee bulshada reer Falastiin. xarigan ayaa laga fuliyay guud ahaan daanta galbeed ee la haysto oo ay ku jiraan Hebron, Ramallah iyo Jericho sida ay sheegeen kooxaha xuquuqda maxaabiista. tirada guud ee dadka ay qafaasheen ciidanka Israel tan iyo bilowgii dagaalkan 7 Oktoobar ayaa waxa gaaraysa 4,730 qofood. wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa iska fogeysay eedeymaha Mareykanka ee ah in Tehran ay weerar ku qaaday markab kiimiko oo maraya badweynta Hindiya iyadoo ay sare u kacday walaaca caalamka oo dhan oo la xiriira weerarada maraakiibta badda. afayeen u hadlay wasaaradda ayaa ku beeniyay eedeymahaasi shir jaraa'id oo uu qabtay maanta oo Isniina. waxa uu sheegay in ay waxba kama jiraan yihiin tuhunka ah in diyaarad drones oo Iran ay soo dirtay ay ku garaacday markab laga leeyahay Japan oo maraya meel u dhow xuduudda ama meel u dhow badweynta Hindiya. ganacsiga caalamka ayaa qalqal ku yimid kadib markii Xuutiyiinta Yemen ee taageero ka helay Iran ay weeraro isdaba ku qaadeen maraakiibta maraysa badda cas. Xuutiyiinta ayaa sheegaya in weeraradan oo ay ku bartilmaameedsanayeen waxay ugu yeereen inay yihiin maraakiib xiriir la leh Israel ay doonayaan in Israel ay ku qabsadaan ama ay ku qasbaan in ay joojiyaan xasuuqa ba'an ee ka dhanka ah reer Falastiin.
afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaa sheegay in eedeymahaasi ay yihiin kuwo aan sal iyo raad toona lahayn, loogana gol leeyahay in lagu sii jeediyo dareenka dadweynaha iyo in la daboolo xaqiiqda la xiriirta ee dowladda Mareykanka ay taageero buuxda ay ku siinayso Yuhuudda si ay usii dhibaateeyaan shacabka reer Falastiin. Weerarkan oo dhacay Sabtidii ayaa lagu weeraray markabka Gem Pluto oo laga leeyahay dalka Japan, kaasi oo ku safraya meel gaaraysa 370 kilomitir oo u jirta xeebaha Hindiya sida ay sheegtay Pentagon-ka Mareykanka. Markabkan ayaa waxa uu ahaa mid Israel xiriir la leh, waxaana uu ka soo ambabaxay Sacuudiga, waxaana uu ku sii jeeday Hindiya sida ay sheegtay shirkadda amniga ee badda. Iyadoo dhawaanahan ay soo badanayeen weerarada dhanka badda, waa markii ugu horeysay ee uu Mareykanka si toos ah ula xiriiriyo falalkan Iiraan. Sidoo kalena waa markii ugu horeysay markab ka baxsan badda cas la sheego in la duqeeyo. aynu dib ugu laabanno wararka la xidhiidha Gaza. Imaaraadka Carabta ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya dagaalkan Israel ee Gaza, inta badanna daaha gadaashiisa 3 bilood ee lasoo dhaafay ee dagaalka uu socday. Wargeyska maalinlaha ee ka soo baxay Israel ayaa sheegay in warbixin uu soo saaray uu ku sheegay in ku lug lahaanshaha Imaaraadka ee xaaladan ay ka mid tahay in laga wada hadlo waxa soo socday ee Gaza. Horaantii December, wakiilka Imaaraadka ee Qaramada Midoobay ayaa tiri fariintan waxay noqon doontaa mid aad u cad. Waxaan u baahannahay inaan aragno qorsho xalin kara 2 gobol ama 2 khariidad oo dhab ah ka hor inta aanan ka hadlin maalinta xigta iyo dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha Gaza. Imaaraadka Carabta ayaa si weyn u daneynaya Gaza iyo Falastiin iyo waxa ku xiga dagaalka Israel ayaa lagu yiri warbixintan. Intaa waxaa dheer, toddobaadkii hore wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa Abu Dhabi kula kulmay xogayaha guud ee Xuseen Sheekh sida laga soo xigtay Arab News. Sheekh Cabdullaahi waxa uu ku nuxnuxsaday muhiimadda ay leedahay in mudnaanta la siiyo wadaxaajoodyada qaab dhismeedka heshiis nabadeed oo 2 dowladood oo u dhexeeya Israel iyo Falastiin. Imaaraadka Carabta ayaa cambaareeyay howlgalladii Al-Qaza ay fuliyeen Xamaas 7 Oktoobar, waxayna ku buurisay dhaqdhaqaaqa Falastiiniyiinta in ay sii daayaan maxaabiista Israel ay ku xidhan Gaza. Si kastaba haatee, Imaaraadku kama uusan hadlin kumanaan Falastiiniyiin oo Israel ay xidhay iyadoo aan wax dacwada lagu soo oogin ama maxkamadeen ah, iyadoo la raacayo siyaasadda xariga maamulka ee aan cadaalad ahayn. Warbixintu waxay intaa ku dartay in wadahadalladan ay dhaceen iyadoo ay jiraan warar sheegaya in Masar ay gacan ka geysan karto heshiis cusub oo la isku dhaafsado maxaabiista iyo soo jeedinta ku saabsan isbedelada suurtagalka ee maamulka Falastiin, iyo sidoo kale warar aan sal iyo raad lahayn oo sheegaya in hogaamiyaasha Xamaas xitaa laga yaabo in Gaza ay uga baxaan. Si la yaab leh, hogaamiyaha Xamaas Yaxya Sinwar ayaa goorsi horeysa ku dhawaaqay in Xamaas ay magaaladeedu si wanaagsan ee Gaza u maamulayso, halka sarkaalka Xamaas Osama Hamdan uu diiday heshiis kasta oo cusub iyadoo aan la helin xabad joojin joogta. Imaaraadka Carabta ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya dagaalka Israel ee Gaza, inta badanna waxa uu isku dayo dhexdhexaadin iyo waanwaan uu dhex dhigo dhinacyada halkaasi ku diriraya. Wargeyska Jerusalem Post ayaan warbixintaasi ka soo xiganay. Warbixintaasi waxay ugu dambeysay wararkii aynu idinkugu soo koobaynay Baahin News. Wararkan iyo warar kale si aad uga bogato, fadlan subscribe inoo saar channelkan, like garee muuqaalkan, la wadaag asxaabtaada qaybta faalooyinka aragtidaada iyo sida ay kula tahay halkaasi inoogu qor. mahadsanidin.